Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay shirkadaha Eni iyo Enel. Han ku hor bilaabay shirkadda Eni SPA. Waa saldhigga Talyaaniga oo saldhiggeedu yahay saliidda. Waxa uu ku yaal magaalada Rome ee xaruntu ah dalka Talyaaniga. Waxaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah macaamiisha caalamiga ah. Waxa uu leeyahay howlgallo 79 waddan ah. Waxa uuna hadda yahay shirkadda 11aad ee ugu weyn shirkadaha warshadaha ee leh iibsiga 68 bilyan oo euro ah. Laga bilaabo Agoosto 14-keedii 2013, dowladda Talyaaniga waxay leedahay 30.303 boqolkiiba saamiga dahabka ee shirkadda, halka 3.934 boqolkiiba oo loogu haysto hantidhawrka dowladda, iyo 26.369 boqolkiiba oo looga haysto Casa Depositi. Sidoo kale 2.82 boqolkiiba saamiyada waxaa qabta Bangiga Dadweynaha ee Shiinaha. Shirkaddu waa qayb ka mid ah heerka suuqa. Magaca Eni waxa uu ahaa markii ugu horeysay ee International Edercobare. Haddii aan si fiican ugu dhawaaqin iga raali noqda, oo afkani waa af Talyaani ah. Halkan ayaa idinku soo qori doonaa hay-adda Hydrocarbons Authority-ga. Sanado kadib markii saldhig u sameysay, waxay ku shaqeysay tiro badan oo beeraha ay ka mid yihiin qandaraasyada sida soo socda: tamarta nukliyeerka, tamar, macdan, kiimikooyin iyo balastiko. Eni had iyo jeer wuxuu ka mid yahay boqolka ugu sareeya ee liiska Fortune Global 500 ee shirkadaha ugu weyn ee dakhliga sanadii 2016. Shirkadaha heesa kaalinta 65aad, hoos u dhaca 40 goobaad oo ka mid ah darajada 25 ee sanadkii hore. Sida shirkadaha soo socda: shirkadda Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips iyo Marathon. Bishii June 2017, shirkadda batroolka waxay aqbashay mas'uuliyadda shidaalka ee sameeyaan xeebta Fleet Blackpool ee boqortooyada Ingiriiska. Qodobka labaad, shirkadda Enel. Enel waa shirkad Talyaani ah oo ka shaqeysa tiknoolajiyadda iyo gaaska. Enel oo asal ahaan ka soo jeeda Guddiga Qaranka ee Korontada ayaa markii ugu horeysay loo dhisay hay'ad dadweyne dhammaadkii 1962, kadib loo bedelay shirkad kooban oo 1992. Sanadii 1999, kadib markii la sii daayay suuqyada korontada ee dalka Talyaaniga. Laga bilaabo Febraayo 2015, dowladda Talyaanigu waxay noqotay milkiilihii 25.5 boqolkiiba saamiyada shirkadda. Sanadii 2014, Enel wuxuu shaqaaleysiinayay qiyaastii 70,000 oo qof oo shaqaale ah. Waxay ka shaqeysaa qiyaastii 30 waddan. Dhammaadkii sanadda 2013, iyada oo 80.5 bilyan oo euro dakhliga iyo suuqgeynta suuqa 31 bilyan oo euro ah, waa shirkadda 56aad ee dunida.